booliiska dekedda jasiiradda Giriigga ee Lesvos ku taala ee badda Aegean ayaa soo badbaadiyay 27 qof oo muhaajiriin ah kadib markii doontii ay kaga yimaadeen Turkiga laga daadiyay. Mid ka mid ah muhaajiriinta ayaa dhintay markii doonta ka timid Turkiga ay ku daadisay koox ka kooban 27 qof xeebta fog ee jasiiradda Lesvos subaxnimadii hore ee Talaadada. Qofka dhintay waxaa la sheegay inuu ahaa qof Soomaali ah oo la sheegay inuu u geeriyooday qabowga daran awgiis. Muhaajiriinta oo badankooda ay ahaayeen Soomaali ayaa kasoo sharaacday xeebaha Turkiga kahor inta aysan tegin xeebaha bariga Lesvos, halkaasi oo ay xalay ku hoydeen, sida uu sheegay sarkaal booliiska dekedda. Jasiiradda Giriigga ee bariga Aegean Sea oo ay ku jiraan Lesvos waa mid ka mid ah marinada laga galo Yurub ee ay adeegsadaan dadka ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada ku haysata wadamadooda. Sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga ah, xaalad qabow ayaa ka jirta Lesvos habeenkii iyo aroortii hore.